wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad adduunka ka joogtaan waxaan hawada idinka leenahay maalin wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhanka ciyaaraha inagoo markaas soo qaadi doona wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan isku aadka horyaalka Premier League oo la soo saaray jadwalka markaa maalinta koowaad ay kooxuhu ku ciyaari doonaan kooxaha waaweyn kulamadooda iyo sidoo kale saxiixyada cusub oo ay kooxuhu sameeyeen ilaa iyo haatan sida ay markaa u safan doonaan kulamadooda ugu horeeya waxaan sidoo kale eegi doonaa koox waliba 38 kulan ee markaa ay ciyaari doonto iyo qaabka ay u kala horeeyaan bil waliba kulamada ay kooxdu ciyaari doonto ayaan sidoo kale eegi doonaa saaxiibayaal kubadda lagu ciyaarayo horyaalka Premier League sidoo kalena shaaca ayaa laga qaaday waana idin soo gudbin doonaa sheekooyinkaas ayaanu eegi doonaa daqiiqadaha soo aadan waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro ee ku soo dhawaada mowduuceena maanta inta aanan sii guda gelinse waxaan idinka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saartaan barteena YouTube-ka sidoo kalena saaxiibada hore noola joogayna ay inoo like gareeyaan muuqaalkan mahadsanideen waxaa la soo saaray isku aadka ama jadwalka horyaalka Premier League fasal ciyaareedka 2022-2023 iyadoo markaa kulamo adag ay ka soo baxeen qaar ka mid ah kooxahana markaa ay kooxo yar markaa ku bilaabanayaan kulamadooda ugu horeeya haddaba marka ugu horeysa aynu soo qaadno bal kooxuhu sida ay markaa koox waliba u arkayso kooxda kale kulankeeda furitaanka ee horyaalka Premier League 2022-2023 kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa markaa kulan London Derby ku furanaysa waxaana ay booqanayaan naadiga Crystal Palace iyaga ayaana furi doona horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan waa sanadkii labaad ama kal ciyaareedkii labaad oo xiriir ah oo Arsenal ay daaha ka qaadayso horyaalka Premier League Ingiriiska xilli ciyaareedkii hore ayay sidaan oo kale markaa u dahrogeen iyaga ayaana markaa dahrogi doona 5 bisha August horyaalka Premier League Ingiriiska Arsenalna waxay booqan doontaa kooxda uu hogaamiyo halyeygoodii hore ee Crystal Palace kulamada kale ee furitaanka haddii aan sii eegana Liverpool waxaa markaa ay la ciyaari doontaa kooxda horyaalka Premier League dhawaan u soo dalacday ee Fulham kooxda xafidanaysa horyaalka Ingiriiska ee Manchester City-na waxaa madaxa loo geliyay naadiga West Ham United Bournemouth ayaa soo dhaweynaysa Aston Villa kulanka furitaanka ee Leeds United iyo sidoo kale waxay markaa la ciyaari doontaa kooxda la yiraahdo Wolves Leicester City waxaa markaa ay soo dhaweyn doontaa naadiga Brentford Newcastle United ayaa markaa madaxa loo geliyay kulankeeda furitaanka naadiga Nottingham Forest Tottenham Hotspur waxaa markaasi ay ku daahfuran doontaa horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub kooxda Southampton Chelsea ayaa iyana madaxa loo geliyay kooxda ka dhisan magaalada Liverpool ee Everton Manchester United waxaa lagu beegay kulankooda furitaanka ahna ay la dheeli doonaan naadiga Brighton and Albion oo ay ku soo dhaweynayaan garoonkooda West Ham United iyo Manchester City-na waa markaa isla ciyaari doonaan kulanka furitaanka kulamada furitaanka haddii aan ku celiyo Arsenal ayaa furi doonta Crystal Palace ayayna markaasi horyaalka ku furayaan Crystal Palace iyo Arsenal ayaana daah qaadi doona horyaalka Premier League 5 bisha August oo ah maalin Jimco ah Sabtida ayaa kulamada kale la ciyaari doona oo ah maalinta xigta Fulham iyo Liverpool ayaana markaa wada dheeli doona Bournemouth iyo Aston Villa ayaa wada ciyaari doona Leeds United iyo Wolves isaya Leicester City iyo Brentford wada ciyaari doona Newcastle United iyo Nottingham Forest wada dheeli doona Tottenham Hotspur ayaa soo dhaweyn doonta Southampton kulankooda furitaanka Chelsea waxay u safri doontaa Everton Manchester United-na waxay axadda oo 7 bishu ay tahay ay soo dhaweynaysaa naadiga Brighton and Albion si la mid ah West Ham United oo qaabilaysa kooxda horyaalka Premier League difaacanaysa ee Manchester City saxiixa cusub ee la yiraahdo Erling Haaland ayaana markaa kulankiisii ugu horeeyay isagu u safanaya kooxdiisa cusub ee City kulanka ay wajahayaan West Ham United kaasoo qabsoomi doona maalin axad ah oo ay taariikhdu tahay 7 bisha August sidoo kalena saxiixa cusub ee Liverpool Darwin Núñez ayaa isaguna markaa nasiib u yeeshay in kulankiisa ugu horeeya Liverpool horyaalka Premier League uu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Fulham marka ay ka horjeedaan taageerayaasha Liverpool ayaa daawan doona saxiixooda rikoorka suuqa ah ee Darwin Núñez horyaalka Premier League Ingiriiska markii ugu horeysay isagoo markaa xiran maaliyadooda waxaana uu ka hortagi doonaa kooxda kubadda cagta ee Fulham markana waxaynu eegi doonaa bal koox waliba 38 kulan oo markaa ay ciyaari doonto horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan iyo bil waliba kulamada ay dheelayso aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta Arsenal
ayaa iyadu bisha Agosto ciyaari doonta 5 kulan, waxaana ay markaasi la kala ciyaari doonaan Crystal Palace oo 5 Agosto ay la ciyaari doonaan, 13 Agosto oo ay la dheeli doonaan Leicester City, 20 Agosto oo ay la ciyaari doonaan Bournemouth, 27 Agosto oo ay sidoo kale qaabili doonaan Fulham, iyo 30 bishaasi Agosto oo kulankooda shanaad ay la ciyaari doonaan naadiga Aston Villa. Bisha September Arsenal waxay la kala ciyaari doontaa 3 kooxood, waxaana bishaasi kulankooda ugu horeeya uu noqon doonaa midka ay 3 bisha September la ciyaarayaan Manchester United. 10 bisha September waxay la dheeli doonaan Everton, 17 bishaasina waxay la ciyaari doonaan naadiga Brentford. 6 kulan ayay dheeli doonaan bisha October, waxaana markaasi ay kala yihiin 1 bisha October oo ay la dheeli doonaan Tottenham Hotspur, kulan London derby ah, 8 oo ay markaa la ciyaari doonaan kooxda Liverpool, 15 bisha October oo ay la dheeli doonaan Leeds United, 18 bishaas oo ay la ciyaari doonaan Manchester City, iyo sidoo kale Southampton oo ay markaa la dheeli doonaan 22 bisha October. 29 bishaasi Octoberna waxaa markaa kulankooda ugu dambeeyay bishaas ay la ciyaari doonaan kooxda horyaalka u soo dalacday ee Nottingham Forest. November waxay markaa Arsenal ciyaari doontaa 2 kulan, waxaana ay la kala ciyaari doontaa Chelsea iyo Wolves. Blue waxay markaa qaabili doonaan Gunners 5 bisha November, halka 12 bishaasna ay la dheeli doonaan kooxda Wolverhampton Wanderers ama Wolves la yiraahdo. Bisha December ee sanadkan ugu dambeysana 2 kulan ayay ciyaari doontaa Arsenal, waxaana ay la kala dheeli doonaan West Ham United iyo Brighton and Albion 26 iyo 31 December. Bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2023kana waxay ciyaari doonaan 3 kulan, kulankooda horena waxay la dheeli doonaan Newcastle, kadib waxa uu xigi doonta 14 bisha Janaayo kooxda kubadda cagta Tottenham, kadibna 21 bishaas waxay la dheeli doonaan Manchester United. Febraayo waxay la ciyaari doonaan 4 kooxood oo kala ah Everton, Brentford, Aston Villa iyo Leicester City. Marso waxaa markaa ay la dheeli doonaan Bournemouth, Fulham iyo Crystal Palace. Abril waxay markaa la kala ciyaari doonaan Leeds United, Liverpool, West Ham, Southampton, Manchester City iyo Chelsea. Bisha ugu dambeysay ee May oo horyaalka la soo xirayana waxaa markaa ay ciyaari doonaan 4 kulan oo kala ah Newcastle United, Brighton and Albion, Nottingham Forest iyo kooxda kubadda cagta Wolves oo markaa ay kusoo gabagabeyn doonaan horyaalka. Crystal Palace ayay ku furan doonaan, waxaana ay kusoo gabagabeyn doonaan Arsenal horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub kooxda Wolves. aynu intaa kaga soo gudubno 38 kulan oo ay ciyaareyso kooxda Arsenal, markan aan aadno 38 kulan oo ay dheeli doonto kooxda kubadda cagta Chelsea horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub ee 2022-2023. Chelsea waxaa markaasi ay ciyaari doontaa bisha Agosto 5 kulan, waxaana kulankeeda ugu horeeya ay ku furanayaan kooxda kubadda cagta Everton, waxaana ugu xiga Tottenham Hotspur. Waa sheeko adag oo Blue markaa waxaa sugaya 2 kulan oo adag oo markaa isku xiga oo Everton iyo Tottenham ayay la kala ciyaari doonaan, kadibna waxay la dheeli doonaan Leeds United iyo Leicester City iyo Southampton bisha Agost inta lagu guda jiro. September waxaa markaa Chelsea ay la kala ciyaari doontaa West Ham United, Fulham iyo Liverpool. October waxay Blue la kala dheeli doontaa Crystal Palace, Wolves, Aston Villa, Brentford, Manchester United iyo Brighton and Albion. Novemberna waxay ciyaari doontaa 2 kulan oo markaa ay la kala dheeli doonto 5 bisha November kooxda Arsenal iyo 12 bishaasi November oo ay la ciyaari doonto Newcastle United. December waxay markaa la kala dheeli doonaan 26 December kooxda Bournemouth, halka 31 bishaasna ee dhamaadka sanadka ay markaa la ciyaari doonaan Nottingham Forest. Janaayo sanadka cusub ee 2023 Chelsea waxay ciyaari doontaa 3 kulan, waxaana ay la kala dheeli doonaan 2 bisha Janaayo oo ay la ciyaari doonaan Manchester City, Crystal Palace oo ay 14 Janaayo la dheeli doonaan, iyo sidoo kale 21 bisha Janaayo oo ay la ciyaari doonaan Liverpool. Febraayo waxay dheeli doonaan 4 kulan, waxaana ay la kala ciyaari doonaan Fulham, West Ham, Southampton iyo Tottenham Hotspur. Marso waxay ciyaari doonaan 3 kulan oo ay la kala dheeli doonaan Chelsea, kooxaha kala ah Leeds United, Leicester City iyo Everton. Abrilna waxay ciyaari doonaan ilaa 6 kulan oo ay la kala dheeli doonaan Aston Villa, Wolves, Brighton and Albion, Manchester United, Brentford iyo Arsenal. Bisha ugu dambeysay ee May 4 kulan ayay ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Chelsea, waxaana ay la kala dheeli doontaa Bournemouth, Nottingham Forest, Manchester City iyo Newcastle United oo ay horyaalka markaasi kusoo gabagabeynayaan. Chelsea waxay horyaalka ku furanayaan Everton, waxaana ay kusoo gabagabeyn doonaan inay la ciyaaraan kooxda kubadda cagta Newcastle United 28 bisha May sanadka 2023 haddii eebana gaarsiiyo.
markana haddii aan Chelsea intaa kaga soo gudubno aynu eegno 38 kulan oo ay ciyaareyso kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana bisha Agosto ay ku furanayaan kulankooda ugu horeeya naadiga Brighton and Albion oo ay gurigooda ku soo dhaweynayaan sidoo kale bishaasi Agosto waxay la ciyaari doonaan 13keeda Bamford 20keedana waxay la ciyaari doonaan Liverpool ayaana ah kulanka ugu adag oo ay dheeli doonto bisha Agost Southampton ayaa u xigi doonta iyo Leicester City oo ay isla bishaasi la ciyaari doonaan bisha September Man United waxay la ciyaari doontaa kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace iyo sidoo kale kooxda Leeds United bisha October Manchester United waxay la kala ciyaari doontaa Manchester City, Everton, Newcastle United, Tottenham, Chelsea iyo West Ham waxaana tababare Erik ten Hag laga sugayaa in uu markaa bisha October iska adkeeyo kooxaha Manchester City, Tottenham iyo Chelsea oo bishaas gudaheeda uu la ciyaaraya si lamida West Ham waana bisha ugu adag marka ten Hag uu wajahayo horyaalka Premier League waa October. November waxaa markaa Manchester United ay la kala ciyaari doontaa labadeeda kulan Aston Villa iyo Fulham. Decemberna waxay la kala dheeli doontaa Nottingham Forest iyo Wolverhampton Wanderers. Janaayo sanadka cusub ee 2023 Man United waxay la kala dheeli doontaa Bournemouth, Manchester City iyo Arsenal. Janaayo laba kulan oo adag waa Manchester waxay kala wajihi doontaa Manchester City iyo sidoo kale Arsenal. Manchester United bisha Febraayo waxay dheeli doontaa 4 kulan waxaana ay la kala ciyaari doontaa Crystal Palace, Leeds United, Leicester City iyo Bamford. Marso waxay la dheeli doontaa Liverpool, Southampton iyo sidoo kale Brighton and Albion. Kooxda kubadda cagta Man United sidoo kale 6 kulan ayay dheeli doontaa bisha April waxaana ay kala yihiin Newcastle United, Everton, Nottingham Forest, Chelsea, Tottenham iyo Aston Villa. Bisha May ee ugu dambeysay horyaalkana Man United waxay la kala ciyaari doontaa kooxaha West Ham United, Wolves, Bournemouth iyo Fulham oo ay ku soo xiranayaan horyaalka Premier League. Erik ten Hag waayihiisa Premier League waxa uu ku bilaaban doonaa Brighton and Albion wuxuuna ku soo gabagabeyn doonaa haddii uu waqtigu saamaxo kooxda kubadda cagta ee Fulham oo ay la ciyaarayaan 28 bisha May sanadka 2023. Manchester City haddii aan eegnana bisha Agosto waxay markaa la kala ciyaari doontaa West Ham United, Bournemouth, Newcastle iyo sidoo kale Crystal Palace si lamid ah Nottingham Forest. Bisha 9aadna waxay markaa la ciyaari doontaa Tottenham iyo Wolves halka Manchester City ay bisha 10aad la kala ciyaari doonto Man United, Southampton, Liverpool, Arsenal, Brighton and Albion iyo sidoo kale kooxda Leicester City waana bil adag runtii oo Manchester City laga sugayo inay isfurdaamiso. Bisha 11aad ee November 2 kulan ayay ciyaari doontaa City waxaana ay la kala dheeli doontaa naadiga Fulham iyo sidoo kale Bamford. December waxay markaa ciyaari doontaa 2 kulan waxaana ay la kala dheeli doontaa Man City, kooxaha Leeds United iyo Everton. Janaayo 3 kulan ayay markaa ciyaari doontaa waxaana ay la kala dheeli doontaa City, kooxaha Chelsea, Man United iyo Wolves. Bisha 2 ee Febraayo sanadka 2023 waxay la kala ciyaari doontaa kooxaha Tottenham Hotspur, Aston Villa, Nottingham Forest iyo sidoo kale Bournemouth. Bisha Maarso Man City waxay ciyaari doontaa 3 kulan waxaana ay la kala dheeli doontaa kooxaha Newcastle United, Crystal Palace iyo sidoo kale West Ham United. April waxay Manchester City la kala ciyaari doontaa kooxaha Liverpool, Southampton, Leicester City, Brighton and Albion, Arsenal iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Fulham. Bisha ugu dambeysay ee May waxaa markaa Manchester City ay la kala ciyaari doontaa Leeds United, Everton, Chelsea iyo sidoo kale Bamford. 28 bisha May waxa ay horyaalka Premier League kooxda difaacanaysa ay kala ciyaareedka ku soo xiran doontaa haddii uu waqtigu saamaxo kooxda kubadda cagta ee Bamford iyagoo markaa ku furanaya kulankooda ugu horeeyana u safraya kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Liverpool ayaynu eegi doonaa 38 kulan oo markaa ay ciyaareyso horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub ee 2022-2023. Liverpool waxay ku furanaysaa 6 bisha Agost kooxda kubadda cagta Fulham oo ay booqanayaan. Sidoo kale bishaasi waxay ciyaari doontaa kulamo kale oo ay markaa la kala dheeli doonto Crystal Palace, Manchester United, Bournemouth iyo sidoo kale Newcastle United. Bisha 9aad Liverpool waxay ciyaari doontaa 3 kulan waxaana ay la kala dheeli doontaa kooxaha Everton, Wolves iyo sidoo kale Chelsea. Bisha 10aadna waxay Liverpool markaasi ciyaari doontaa 6 kulan oo ay la kala dheeli doonto kooxaha Brighton, Arsenal, Man City, West Ham, Nottingham Forest iyo sidoo kale Leeds United.
bisha 11aad laba kulan ayay markaasi ciyaari doontaa Liverpool bisha November, waxaana ay markaa kale yihiin labada kulan ee ay la kala dheelayso Tottenham Hotspur iyo Southampton. sidaas oo kale bisha ugu dambeysa sanadkan 2022 horyaalka Premier League Liverpool waxay ciyaari doontaa si lamid ah kooxaha kale kaliya laba kulan, waxaana ay la kala ciyaari doontaa kooxaha Aston Villa iyo Leicester City. bisha Janaayo ee sanadka 2023 amaba bisha koowaad Liverpool waxay ciyaari doontaa 3 kulan oo ay la kala dheelayso kooxaha Brentford, Brighton iyo sidoo kale Chelsea. bisha labaad ee Febraayo sanadka cusub ee 2023 haduu eebana gaarsiiyo Liverpool waxay markaa ciyaareysaa 4 kulan, waxaana ay la kala dheeli doontaa kooxaha Wolves, Everton, Newcastle United iyo Crystal Palace. bisha saddexaad ee Mars 2023 Liverpool 3 kulan ayay dheeli doontaa. kulankeeda ugu horeeya bishaasna waxay la ciyaari doontaa Man United, halka kulankeeda xiga ay la dheeli doonto Bournemouth, waxaana u xiga kulanka ay la dheelayso kooxda kubadda cagta ee Fulham. bisha afaraad ee Abriil 2023 ilaa 6 kulan ayay ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Liverpool, waxaana kulankeeda ugu horeeya bishaas ay la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta Manchester City. kulankeeda xiga Arsenal ayay la leedahay Liverpool, halka kulankeeda ku xiga ay la ciyaari doonto Leeds United. waxay sidoo kale la dheeli doontaa kooxaha Nottingham Forest, West Ham United iyo Tottenham Hotspur. marka kulamo adag ayaa sugaya bishaas oo ay ku jiraan Tottenham, kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal. marka bishaas inay isadkeyso ayaa looga baahan yahay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. bisha ugu dambeysa ee May oo horyaalka markaa la soo gabagabeynayo kooxda kubadda cagta Liverpool waxay dheeli doontaa 4 kulan oo ay markaa la kala ciyaari doonto kooxaha Brentford, Leicester City, Aston Villa iyo Southampton. kooxda kubadda cagta ee Jurgen Klopp uu hogaamiyay ee Liverpool waxaa markaa kulankeeda ugu dambeeya 28 bisha May 2023 ay ku soo xiran doontaa haddii eebana gaarsiiyo kooxda kubadda cagta Southampton, iyagoo markaa ku furanaya kal ciyaareedkooda Premier League ee 2022-2023 naadiga Fulham oo markaa ay booqanayaan. kulankaasna saxiixooda cusub ayaa markaa u safan doona, waxaana ay baasan doonaan horyaalka kooxda Liverpool 6 bisha Agost sanadkan 2022. intaasi waxay ahaayeen guud ahaan kulamada koox waliba ay ciyaareysa ee 38 ah oo aan idin soo gudbinayay. sidoo kale waxaa la soo saaray kubadda markaa lagu ciyaari doono horyaalka Premier League Ingiriiska xilli ciyaareedkiisa cusub, iyadoo kubaddu ay tahay midan idin muuqata. kubaddaas ayaa lagu dheeli doonaa horyaalka Premier League Ingiriiska xilli ciyaareedka 2022-2023. intaas ayaan idinla socodsiinaya saaxiibayaal. muuqaalka ayaa nagu dheeraaday. intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh.